السلام عليكم سيلفيا رومانو أما عايشة رومانو قصة أفتوك هذا إسلامين تيدا يوليبا سيدين تيدا وحي أي لا كلانتي مركي قاعدي تليانيغا أيضا حران حجابك سيدا إنا لغو قوديي ديل بوليسك التليانيغا نونكو قصباناضي قريدا إنو كوريتشيو إلالا بوليس سي لوغو بدباديو أحزاب تميدك حق شركة لغو قوديي إنا يديليان عايشة laga yaabaa isbuucan inaad aragtay gabadh Talyaani ah ama sawirkeeda oo laga soo afduubay dalka Kenya Soomaaliya lagu hayay muddo 18 bilood ah haddaan halkan ku sheegno qisada afduubkeeda markii hore waxa loo yaqaan magaceeda Silvia Romano haddana Aisha waa 25 jir Talyaani ah 20kii November 2018 tuulo lagu magacaabo Shakama deegaanka Kilifi gudaha Kenya dhinaca koonfurta waxay u shaqeynaysaa hay'ad samafal ah oo Talyaani ah oo lagu magacaabo Africa Kimile taliyeero ay deganeed waxa soo weeraray rag hubeysan oo markii dambe la ogaaday inay ka tirsan yihiin al-shabaab faraca Kenya arrinkan wuxuu muujinayaa meeshii joogaan iyo dagaalka ka socda gudaha Kenya inay koonfurta fog ee Kenya ay dadka soo afduubaan 10 maalmoodna ay ku jiraan gudaha Kenya kadibna ay soo galaan Soomaaliya وهذا ay qortay saxaafadda Kenya waxay tiri ciidamada Kenya ay ku jiraan gudaha Soomaaliya shabaabna waxay ku jiraan gudaha Kenya wayna soo daba mareen 18 bilood ayay afduubneen Silva waxay tiri safarka meesha laga soo afduubay waxay ahayd ilaa ay Soomaaliya yimaadeen bil dhameystiran intaana waxay ku soconayeen dhul hawd ah afduubayaashu waxay wateen mootooyin mid ayaa ka xumaatay ayay tiri kadibna waxay tiri 9 maalmood ayaan ku lugeynay dhulka hawdka ee dalka Kenya kaasoo u dhaxeeya koonfurta Soomaaliya iyo Kenya dhulka hawdka ah ee jubooyinka ee ka hooseeya dhul baraha kaymaha roobku sida joogtada uga da'o waxay tiri dabcan ayagoo ka baqaya inay diyaaraduhu bartilmaameedsadaan waxayna ku soconayeen waxay tiri wadooyin qardajeex ah waxay tiri Soomaaliya markaan imi waxay dejiyeen qol waxay tiri bishii hore waxay ahayd bil aad u adag oo hin ayay ku dhameysatay waxay sheegtay inay taaban jirkeeda inay garaacin wax jir dilaana u geysan kaliya waxaan arkay waxay tiri niman afduuban oo soo galay qolka marmar una hadlaya af aan fahmayn waxaan ka dalbaday buug aan wax ku diiwaan geliyo inay siiyaan oo inay siiyeen buugtii warbaahintu waxay sheegtay in lagu qasbay ragga afka soo afduubay mid kamid ah inuu guursado oorna inay leedahay arrinka way beenisay waxayna ku tilmaamtay arrin aan sax ahayn wargeyska Corriere della Sera ee Talyaaniga ka soo baxay ayaa waxay ka dalbatay inay u keenaan kutub waana marxaladda nolosheeda bedeli doonta sida uu sheegay wargeysku kutubta u keenan waxa kamid ah kitaabka Quraanka Kariimka wayna akhrisay sida ay leedahay markaan akhriyay ayaan ku gaaray qanaaco islaamka inaan islaamo waxay tiri waxaan maqlayay eedaanka tuuladan joogo maalintii dhowr jeer dabcan maqaallo fara badan ayaa laga qoray islaamnimada in lagu qasbay ayna qanaaco u qaadanin laakiin haddayna qanaaco ku qabi lahayn markay gaadhay safaaradda dalka Soomaaliya ee ku taala ee Talyaaniga ee Muqdisho way tuuri lahayd markay gaadhay waliba Roma markay gaadhay ayay tuuri lahayd dhinaca kale markaan qiyaasno ujeedka loo afduubay waa lacag helis in weydiisto madax furasho xukuumadda Talyaaniga ma ahayn in qasab lagu islaamiyo tusaale ahaan siday sameeyeen al-Qaacidada Saxaraha Afrika markay afduubaan dalxiisayaasha Faransiiska inay weydiistaan xukuumadda Faransiiska madax furasho ujeedka afduubkeedu wuxuu ahaa inay Talyaaniga madax furasho ay weydiistaan arrinkan islaamnimada in lagu qasbay waxay soo cadaan doontaa maalmaha soo socda waan ogaan doonaa inay qanaaco qaadatay iyo in lagu qasbay haddaba qaabka lagu soo daayay xoog madax ama si iskeeda oraahyo badan ayaa arrinka laga yiri maalmihii aan la sii dayn waxay ku sugneed meel u jirta 30 kiiloomitir magaalada Muqdisho badeynteeda warar badan ayaa ka taagan tusaale warbaahinta wax ka faalooda ahaan carabta sidaan arkay xitaa kuwa YouTube-ka wax ku soo gudbiya
xaddaafka u taageersan Rajab Tayyip Erdogan waxay sheegayaan inuu sirdoonka Turkigu ku guuleystay arrinka ama xitaa waan in lagu soo daayay oo Turkigu sameeyay. Kuwa Talyaaniguna waxay leeyihiin sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya ka Soomaaliya ayaa soo daayay Caaisha ama Silvio Romano. Wargeysyada Talyaaniga waxay leeyihiin xukuumadda Talyaanigu waxay bixisay madax furasho, halka gabadhan iyo Talyaaniguba ay beeniyeen wax madax furasho in laga bixiyay gabadhan. Sidaan sheegnay, ila kale ayaa leh waan ayaa lagu soo daayay Turkigu sameeyay, laakiin ta ugu macquulsan waxa weeye si iskeeda in loo soo daayay gol military waan maqli lahayn. Waxaan arkay wargeys leh raggii haystay ayaa sii daayay. Haddaba markay Talyaaniga gaadhay ayay qiso kale u bilaabatay, soona xasuusay maalmihii afduubka in nolosheeda walwal uu galo markay soo gaadhay goodin dil ah. Booliska Talyaaniga ayaa gurigeeda ilaalo dul dhigay si looga badbaadiyo weerarka axsaabta midigta xagjirka ah. Waxaa sii dheer weerarka ka imanaya bulshada ay la kulantay, xitaa ka imanaya siyaasiyiin rag jagooyin sare ka haya dowladda. Mid lagu magacaabo Ceylon Istunjani oo ah la taliye xisbi Talyaani ah ayaa yiri weligiin ma maqashin Yuhuudi ka badbaaday xabsiyadii Naaziyiinta dibna qaatay Naazinimada isagoo xidhan dharkooda. Halkan dharkooda wuxuu la jeedaa xijaabka. Mid kaloo xagjira ah oo lagu magacaabo Simo Giortici ayaa yiri miyaan ku faraxsanahay gabadha in la sii daayo, ayaa yiri maya, isagoo raaciyay waa qof muslin oo ah dheeraad ayaa nagu soo biiray. Islaamnimada waan ku hambalyeynaa Caaisha, waxaan u rajaynaynaa nolol wanaagsan inay ku noolaato. Taatay soo martayna inuu Ilaahay uga dhigo dambi dhaaf. Duceeni maanta intan ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.